Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idil ahaantiin asxaabta aan hawada ku wada saaxiibnay barnaamijka aan caawa idin hayo waxaad ka daawanaysaa tiim looganaan waxaan idin daadihinay anigoo Mr. Qumbo. wararka idinka hayna qurwaale ayaa ah dagaal aad iyo aad u weyn dhexmara iyada iyo sokor oo go'aan weyn ka qaadatay qurwaale oo ay sheegaysa markii kasii dambeysay inay xasuuq u geysanayso. qurwaale ayaa iyadana baaqeedu wuxuu ahay inay sii joojin doonin dagaalka xooliga ah ay ku hayso sokorna iyadana ay samaysatay daafac aad u weyn iyadoo daafacaas ay ka helaysa garabkaas bilaadan uu u sameeyay bacdaas oo lagu sugi doono sokorta. qurwaale iyadana waxay ku candoconaysaa bac iyo wax walba iyo bilaadan haddii garab ku siiyaan inaan bacda xataa deynayna ay leedahay. ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka amniga qurwaale ayaa baaq u soo jeediyey inay bilaadan uu joojin doono bacdan u soo suubiyey Mr. Sokor oo iyadana qurwaale ay ku candoxitay bilaadan hadduu garabkaas ka joojin waayo Mr. Sokor inaysay iyadana ay ku soo qaadi doonto dagaal aad weyn inay ku soo qaadi doonto sokor. dagaalkaas khasaaraha iyo dhimashada iyo dhaawaca meeshaas ka yimaadana uu mas'uul ka yahay Mr. bilaadan oo aad iyo aad uga xanaaqsan Mr. qurwaale oo uu leeyahay qurwaale waxbana iima reebto saastana qurwaale waxay leedahay aniga meel walba oo bilaadan uu leeyahay aniga waxba kama sameeyo waxaanan aan sokor ka ahayn iyo macaan aan ka ahayn ma bareedsado. bilaadan ayaa si fiican jawaab uga bixiyay hadalkii ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka qurwaale uu dhahay aniga sokor ayaan ka raadsadaa bas ah. bilaadan ayaa asagana baaqiisa uu yahay hadduu asagana uu qurwaale iga dheeraan waayo anigana sokor aan garab siinaya. wararka naga soo gaaraya qurwaale halkaas ayuu ku ogyahay. wixii kale oo faahfaahin ah oo saacadaha noo soo socda ay soo gaari doonaan insha Allah waa idin soo gudbin doonaa.